أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الثالث عشر، حديث كيس الدحي طبناد عن أبي حمزة. أبي حمزة ayaa laga wariyay Anas ahaa magaciisu Anaskii ibnu Maalik wiilkiisa ahaa radiyallahu anhu, Allah ka raali noqday. Khaadimi rasuulillaahi, rasuulka Ilaahay khaadimkiisii ahaa Anasku. Sallallahu Allah u naxariisiyaadiye calayhi nabiga dushiisa, wa sallama Allah u nabadgeliye siyaadiye canin nabiy nabiga xaggiisa wuxuu ka wariyay sallallahu calayhi wa sallam. Qaala rasuulku wuxuu yidhi: laa yu'minu axadukum qofkiin rumayn maayo xataa yuxibba ilaa uu la jeclaado liakhiihi walaalkiis maa yuxibbu linafsihi nafsadiisa wuxuu la jecel yahay. rawaahu xadiidka waxaa wariyey albukhaariyu, imaamu bukhaari baa wariyey, wa muslimun, imaamu muslimna wuu wariyey. rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay: qofkiin iimaan dhaba laga heli maayo oo kaamil ah ilaa uu la jeclaado walaalkiisa muslimka ah maa yuxibbu linafsihi nafsadiisa wuxuu la jecel yahay. xadiidka waxaa wariyey albukhaariyu iyo wa muslimun. intaan baan cashirkeenna ku joojinaynaa. Allahu aclam.